shirkan degdeg ay isugu yimaadeen xubnaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudoominayay siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha xukuumadda iyo inaysan hakad gelin adeegyada ay bulshada u hayso xukuumadda Soomaaliya inta laga soo dhisayo xukuumad cusub. Waxaa looga hadlay ajadayaashii hadiya jeer taagnaan jiray ee ugu horeeyay dabcan warbixinta amniga dalka sidoo kale xaaladda dalka ee COVID-19 iyo sidii dalka dib loogu furi lahaa waxaa kale oo looga hadlay si xoojinta howlaha xukuumaddu wado maadaama shalayto go'aankii golaha shacabku qaatay xukuumadda kalsoonida laga noqday ilaa inta xukuumad kale oo xilka kala wareegta laga soo dhisayo in howlaha dawladda sidoodii ay ahaadaan oo la dardargeliyo goluhu wuxuu ugu horeynba ammaanay runtii waxqabadkii iyo soo jeedkii iyo howlkarnimadii iyo qorshihii fiicnaa ee uu sameeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa aad iyo aad loo amaanay loona rajeeyay khayr iyo future wanaagsan kaalintiisii hogaamineed ee golahan shalayto kalsoonida laga noqday uu ku hogaaminayay intaas kadib golahu sidoo kale waxay ka hadleen dabcan u diyaar galowga marxadda kala guurka iyo inaan shaqooyinkii dawladdu aanay dib u noqonin inta xukuumad kale oo xilka la wareegaysa ay imaanayso in si adag loogu shaqeeyo qorshayaashii iyo hawlihii socday aanay halkoodii dib uga dhicinin in dhawaan maadaama uu hoos u dhacay xanuunka COVID-19 iyo dadka uu soo ridanayo saameynta uu Soomaaliya hadda ku leeyahay in si dhaqaalaha dalku uu dib ugu kaco dib loo furo dhawaan garoomadii diyaaradaha iyo iskuuladii iyo jaamacadihii iyo dalka meel kasta oo xiran in dib loo furo iyadoo taxadirka laga qabo in wave-ka labaad ama wareegga labaad ee coronavirus-ka wadamada adduunka wadamo kamida uu ku dhacay taxadir xoog leh laga qabo mar kasta ay imaan karto in ama wadan ama meel gaar ah hawlaha ka imaanaya haddii khatar loo arko la joojiyo. golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale isku raacay isla markaana baaq u diray dhammaan dawladaha taageera Soomaaliya waxa ayna fareen inay ixtiraamaan madax banaanida Soomaaliya isla markaana talooyinka ay dawladda siinayeen u soo maraan wadada saxda ah. golaha wasiiradu runtii wuxuu bogaadiyay taageerada beesha caalamku had iyo jeer ay la garab taagan tahay dawladda Soomaaliyeed siyaasad leh horumarin leh dhaqaale leh amni leh ayaa golahu aad iyo aad u bogaadiyay haddana dhinaca kale waxay golaha wasiiradu ka codsadeen diplomatic missionska iyo dawladaha aanu saaxiibka nahay inay ixtiraamaan madax banaanida iyo dastuurka iyo go'aamada hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda inay ixtiraamaan wixii tala ah ee hayaan u hayaan horumarinta iyo adkeynta nidaamka dawliga ah ee Soomaaliyeed na inay u maraan janaalka diblomaasiyadda ay u maraan. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.